mudane maayar biriijkan markii aynu dhagax dhigaynay waxaa ka soo wareegtay 4 bilood December ayay ahayd markaan dhagax dhignay ilaahayna guul buu inoogu dhameeyay boqolkiiba 60 dawladda hoose bixisay boqolkiiba 40 dadweynaha bixiyay miisaankana iyagaana ilaahay xasanada ka siiyo aynu arrinka ogaanaynaa waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Maxamed Daawud oo isaguna hawl weyn qabtay iyo guddida horumarinta oo Sheekh Mubaarak uu ka yahay ku raagi maayo taa waxaan doonayaa 3 qoloba maanta inaan kelmad ilaa mid waa maayarkayga oo halka fadhiya labada gudoomiye musharax xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga ucid Faysal Waraabe iyo shacabka Hargeysa 3 qolo waxaan doonayaa maanta inaan min kelmad ilaa waxaan ku horeysiinayaa oo nafeefna ka dhiganaya labada oday Faysal iyo Cabdiraxmaan intaan la hadan inay dambi ugu tahay ka hadalkooda oo maanta u diri maayo canaana u diri maayo baaqna u diri maayo waayo way naga mudan yihiin siyaasiyiin cusub baan inagu inaanu nimanka aanu isku dhararino ma habboona balse halkan codsi baan uga dirayaa maanta codsigaan u dirayaa waxa weeye golaha deegaanka Hargeysa siduu ku yimi sanadkii hore June waynu ka wada qabnaa dhamaanteen iyadoo doorasho adag aynu soo maray ay isugu soo baxeen 17 xildhibaan oo 17 kuba han maayarnimay wada leeyihiin waxa dhacday maadaama kursi kaliya uu ahaa inaanu annagoo danta magaalada Hargeysa ka eegayna aanu ku dhisnay walaalkay Cabdikariin Mooge annagoo markaa xisbina aanu eegin horumarka Hargeysa iyo dhistaanka Hargeysana ka eegnay waxaanu wada dhisnay dhamaantayo 17 xildhibaan ee hanka lahaa walaalkay Cabdikariin Mooge waxaanu ku ballanay inaanu Hargeysa meel uga soo wada jeedsano shaqada noo taala Hargeysana aanu kaga bixi karno annagoo gacmaha isqabsana dhamaantayo annagoo xisbina aan ahayn reerna aan ahayn ilaahay tii noo hirgeliyay maayarkiina si fiican buu noogu hogaaminayaa waxa dhacday mudanayaal nasiibadii suuqa waa heer markii ay nagu dhacday in saraakiil ka tirsan labada xisbi ay siyaasadeeyeen hadalka iyo dareenka kala shakiga ee maanta yaala shacabka Hargeysa dhex yaal ay sabab u yihiin iyagu codsiga aanu idii wadnaa waxa weeye haddaan golihii deegaanka nahay inaad naga xakamaysaan saraakiisha labada xisbi ka tirsan ee shakiga dhex dhigaya golaha deegaanka shacabka Hargeysa iyo xukuumadda waan u baahanay garabkiina iyana na garab istaagtaan waan u baahanay talo iyo tusaale iyo adduunba waan u baahanay madaxdii dalka hatiin codsiga iyagu waa inaad saraakiishiina aad naga xakamaysaan waxay sabab ku noqotay ee keentay in golaha iyagii deegaankee midaysnaa markii hadalkaasi uu soo noqnoqday saraakiisha labadiina xisbi ay ka shaqeeyeen tirada ilaa 3 xildhibaan ay shirjarayd qabteen iyadoo ay tahay markii horeysay bulshadiina waxa gaadhay kala inaanu qaybsanahay baa gaadhay reer Hargeysa waan la hadli doonaa codsiyaasaan u wadaa maanta labada oday inay naga aqbalaan haddii la helaa
shacabka hargeysa waxaan leeyahay idinku waxaad u baahan tihiin waa horumar iyana wax idii qabanno waxaan wax ku qaban karnaa waa golaha iyaga deegaanka oo midaysan oo mid ah ayaan wax idii qaban karnaa ma kala qaybsanin hal mid baanu nahay cabdikariin axmed mooge maayarkayaga ninkii ammaanaya ama difaacaya iyo kii wax ka sheegaya caayaba midna waxba tari maayo cidda dooratay maaha idinka cabdikariin waxaa doortay 17 mudane ee golaha deegaanka ka tirsan maalinta uu naga wacdo cabdikariin maalintaanu aragnay inuu gaabis yahay annagaa la xisaabtamayna maantase kuma aragno inuu weecday gaabisna kuma aragno ciddii wax ka sheegtaa waa cid horumarka hargeysa diidana wax ka sheegtay taana shacabka hargeysaan leeyahay maalintuu wacdo walaalkay waa halkaa fadhiya annagaa kursiga saarnay waanu ka qaadaynaa laakiin ilaahay ma keena ha timaada maalinteeda cabdikariinna mid baan leeyahay mudane maayar dareen baa jira gudaheena in muddo 3 wiiga xildhibaano golaheeni ay ka hadlaan saxaafadda oo ay ku kala fikir duwan yihiin waxbaa jira gudaheena waxaan kaa codsanayaa hawshaas intaanay fogaan inaad gacanta la soo gasho inaad golahaagii aad midayso golahaagoo mid kuwa ayaa waaheen aynu dhisi karnaa hargeysana aynu dhisi karnaa ugu dambayn waxaan u mahadnaqayaa qurbajooga somalilan meel kastay joogaan oo dareen wadaniyadeed iyo mid damqashada iyagoo isku duuban ooga hawlgalay dhibaatadii naga soo gaadhay suuqa waaheen haniyad jabina horaan u soconnaa annagu hal mid baanu nahay mar kastoo emergency yimaado arrin culusna uu yimaado kulli qabyo lagama waayo waanu sasaxaynaa